بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u mahad celinayaa Inspire Group oo dareemay in loo baahnaa qof dumar inay ka mid noqoto. marka mahad weyn baan ugu celinayaa taas horta. horta wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland marka laga hadlayo anigu waxaan qabaa in Soomaaliya lala hadlo waan aaminsanahay laakiin tiise in aynu ka dhigano wax kasta oo aynu hore u marin lahayn ictiraaf meel kale ka raadin lahayn haddaynu ku xidhno Soomaaliya meel lama gaarinana waan aaminsanahay haddii Somaliland mag loo doonayo anigu waxaan qabaa markii muftaaxa masiir Somaliland la dhiibay oo ahaa shirweynihii ay Somaliland government ka qayb gashay 2012 bishii labaad lagu dhisayay dawlad la ictiraafayo loogu dhisayay Soomaaliya Somaliland ka qayb gashay qodobadii ka soo baxay oo dhowr iyo 20 leenugu qarciyay qodobka 6 baa ina khuseeya oo qodobka 6na uu ahaa mid oranayo un hawada hadlaan hase ahaatay aanad ajendaha marka dib loogu noqdo waxay sixi doona wasiiradii ka qayb galay hormoodka ka ahaa waftigii ka soo qayb galay London shirweynahaas anigu waxaan qabaa waa meeshii Somaliland muftaaxeed iyo wixii ay table-ka la tagi lahaydba lagu dhiibay baan qabaano waa inoo yimido waxaan xasuusanahay markii imanayeen February London imanayeen waftigaas meel kasta waan su'aal baan weydiiyay war maxay inoogu jira waayo guurtidii waxa la baas gareeyay in Soomaaliya lala wada hadlo waxaanu sameeyay talaabo weyn baynu qaadnay oo ahayd in Soomaaliya soo hor fadhiisano hase ahaatee waxaan leeyahay dhaadhicin kari waay ama aan heli waay wax miisaan leh oo taa lagu bedeshay ilaa haddana ma hayno marka horta muftaaxii wixii aynu miiska la tagi lahayn maalintaas aynu gacmaha taagno in isu dhiibnay Soomaaliya marka qasab bay maanta inagu tahay in Soomaaliya la hadalno waayahay waxa uu sheegay in dhowr goor la kulmay oo ay kamid tahay waxa la yiraahdo Chevening House oo Kent ku yaala UK ay isugu yimaadeen labadii guddiye la isu keenay waxay soo saareen communique hala wada hadlo wax kale oo faa'iido leh oo meesha ka soo baxay ma jirin haddana waa la tagay waxa la tagay Dubai maxaa laga doonay waxa tagay guurtida tagtay xisbiyada la kaxeeyay hodeel weyn baa lagu dajiyay madaxweynayaasha sawirro qurux badan baa la galay maxay Somaliland ka faa'iiday zero waxa kaliya laga soo saaray oo communique-yadii kamid ahaa in ay Soomaaliya iyo Somaliland wada hadlaan in wixii lagu wada hadlay Chevening House shirki ka dhacay wixii lagu wada hadlay in Sheekh Shariif uu muxuu istaanka ku dhufto waa la soo dhaafay Ankara la yimid Ankara haddana laga wada hadlay hadda wixii oo dhan halkan aan ku haya kullu communique-yadii oo dhan every single one waxaad moodaa inta la soo copy gareeyay kii hore in haddana mid cusub laga dhigay Djibouti bay shirka qayb galay dawladii hore shirkaasi wuxuu ahaa waxa la af Soomaali ba la hirgelinaya oo la hoosiis leynooga dhigay waxa ka soo Xasan Sheekh baa yimid haddana waa la heshiiyay maxaa lagu heshiiyay communique-du waa tii copy-gii haddana one more time waxa lagu heshiiyay in la wada hadlo waxa la wax Soomaaliland uga soo ma jiro haddaba in la wada hadlaa waa sax in aan Soomaaliya la hadalno hor fadhisanaa waa wax sax laakiin tiisa anigu ma qabo inay tahay wixii kaliya ay tahay inaynu sameynayna tahay waxay la tahay in Somaliland asxaab adduunka samaysato iminka inaynu ictiraaf doonayno waxa la yiri inima maxaa la fadhigiisa arkayso lama sareystaa position wasaaradda arrimaha dibadda taagan tahay waan wada ogsoonaa seriously waxaad moodaa gaari lagu barbaranayo kolba mid loo dhiibay inuu gaari ku
inaynu serious ka nahay ictiraafba ma moodid ya maalin walba mid cusub oo kugu leh maalin walba mid cusub oo kugu leh wallahi waxba la dhiibay laakiin saan u wada garanba maayo ayaa loo dhiibaa waan ka xumaa inaan saa yidhaahdo laakiin tise anigu I feel very let down mujtamaca Somalilandna siyaasiyiintu runta uma sheegin anigu marmarka qaarkood waxaan isweydiiyaa inay nagaba dhab tahay inaan ictiraaf doonayno waxa ka budget badan madaxtooyooyinkiina soo dhaafay baa ka budget badan waxaynu ka doonaynay adduunka oo ah ictiraafaha ma adduunyada markaad eegto maaha uun meeting la galay asxaab baa la samaystaa asxaab leader kaliya asxaab aynu nahay oo inala dhimanaya ma lihin Ethiopia saaxiib nahna waynu nahayo Ethiopia is ready in askarteedu u dhimato Soomaaliya adiga se ku dhiman mayso marka anigu waxaan qabaa wada hadalada in la wada hadlo waa sax laakiin we should not put all our eggs in one basket wana meel kalena eegnaa waa in boorka laga tumaa maxaa la yiraahdaa wasaaradda arrimaha dibadda waa in laga fikiraa sidii dadkan loola hadli lahaa waxa muhiim ah dadka la hadlaysa inaad taqaanid maba naqaanaba weligeena Ilaahay qof reexamara ma inaan soo hor fadhiisan maalinta aad soo hor fadhiisatid adigoo emotional ah oo xasuuq ka sheekeynaya oo cirka maraya ayaa dada laga helaya maartay argumentka laga helaya marka anigu waxaan qabaa Soomaaliya halala hadlo laakiin tise that's not the only road wadadii kaliya aynu ictiraaf ku helaynay Soomaaliya ma aha miftaaxii aynu 2002 alifkii u dhiibnayna aynu la soo noqono aynu iska dayno hadalhaynta faraha badan ee farmaajo nala hadasha because farmaajo kuma soo jeedo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.